waxaa maanta xorriyadoodii dib u halay labada fanaan ee kala ah barwaaqo maxamed xaashi barwaaqo qalanjo iyo xamde yuusuf ibraahim xamde qaali fanaanintan oo ku xidhnaa mid ka mid ah jeelasha magaalada Hargeysa ayaa warbaahinta kula hadlay hotel Bacdo ayagoo u mahad celiyay dhammaan intii ka qayb qaadatay soo deyntooda waana kuwan ilaahay baa mahadale maanta xorriyadeedii noo soo celiyay marka xigta waxaan u mahad celinaynaa dawladda xukuumadayada uu horeeyay mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha ayaga dhammaan xukuumadda oo dhan jananka ciidamada waxaanu leenahay aad baad u mahadsantihiin saldhigii aan ku jirnay ee sida fiican oo la dhaqmay mucaarad iyo muxaafidba waxaanu leenahay intii ka hawl gashay iyo asxaab iyo family dhammaan intii ka hawl gashay socodkayga siideyn waxaanu leenahay waa mahadsantihiin ciidoodii koos xidhan waxaan bilaa xorriyad ahay inaanu dareemaynay ma jiran alxamdulillah rabbil caalamiin dad waxa jira faafiyay waxa lagu xidhay waxyaabo kale iyaga oo ku dhex jira waxyaabo xunxun oo sheeko kiiskoodu wuxuu yahay wax qaldan iyaga oo isticmaalaya waxaanu leenahay anagoo wada jira kiiskina lagu soo xidhay adduunweynaha meel kasta waa laga ogyahay taas mid isqaranaysa waxaan ay ahayd waad la socotiin baan u malaynayaa waxaan mahad celinaynaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala fududeeyay maanta sii deynteedu inay suurto gasho waxaan kaloo mahad celinaynaa dhammaan xukuumadda ugu horeeyay madaxweynaheena Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo dhammaan maxaafid macaarid intii garab taagnayd iyo asxaabtii eheladii ka qayb qaadatay sii deynteeda dhammaantood aad baan ugu mahad celinaynaa intii niyadda nooga soo ducaysay intiina garab taagnayd gidigiinba mahad baan idinka celinaynaa insha Allah sii deynta labada fanaan ayaa ku beegmaysa xilli wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo shalay ku dhawaaqay mid ka mid ah xeerarka ay ku heshiiyeen Soomaaliland iyo Soomaaliya kaasoo dhigayay in ciyaaraha waxbarashada iyo fanaaniintu ay isu talaabi karaan labada dal.